السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkeenan wuxuu ku saabsan yahay box model css ama css box model waxa la dhahaa. So css box model aan ka hadlaynaa. insha allah waxaa samaystay file html ah iyo file css ah samaystay. So marka sidaa darteed labadan file aan isku xiraa. marka hore fileka html-ka gudihiisa structure-kii html-ka qoraa shift plus 1 dhahaa. So image abbreviation ayaa dhahaa si automatic asa igu qoraa qoraalka. okay halkan document ay ku qoran tahay magac u baxsanaa waxa u baxsanaa tusaale oo kale box model. okay box model marka u baxsaday waxa isku xiraa labadeeda file ee css-ka iyo html-ka. halkan waxa dhahaa linki css file-ka iyo html-ka file css ku xiraa. so marka waa isku xiri halkaana imaana container samaysana def ah. defka dhexdiisa waxa gashanaa h1 kaas waxa u baxsanaa box model. okay box model marka u baxsay kadib halkaana imaana paragraph-ka waxa ku qoranaa this is paragraph-ka asna waxa ku qoranaa tusaalo this is a paragraph. this is a paragraph. tusaalo kato adding a new box model. tusaale waa marka aniga waa iska qori wax macno oo aan kala jeedo ma laha. qoraal iska qori waaye sidaas oo kale adna qoraalaha iska gashanaysaa h1-ka elementeyadan labada elementi. laakiin waxaa qasab ah inuu ku dhex jiraan labada element h1-ka iyo paragraph-ka inay ku dhex jiraan container ama parent element sida defka oo kaleeto. okay css-ka imaanayna waxa u yeeraynaa defka u yeeraynaa. okay halka markaa css-ka imaadno def ayaa u yeeraynaa. defka waxaa siinaynaa properties oo box model aan siinaynaa. okay halkan border aan siinaynaa. borderkeena waxaan dhigaynaa 15 pixel inooga dhig solid waxaa ka dhigtaa green colorka green iga dhig. okay haddaa fiirinaa aan soo yareeyo daaqadahan aan soo yareeyo. okay haddaa fiirinaa refresh aan dhahnaa waa kana waxaa arkaysaa qoraalkeeni h1-ka ee box model iyo qoraalkeeni paragraph-ka waxaa dhex gashanay border aa dhex gashanay. so borderka hadda comment saaro waxaa arkaysaa qoraal caadi ah inoo soo baxay. qoraalkan waa qoraalkii h1-ka box model iyo qoraalkan paragraph-ka waaye. so marka waxaa sii borderkayga 15 pixel ka dhigi solid aa dhahay green waaye. so sidaasi lamid ah halkan solid aan dhahay waxaa dhihi kartaa dotted aa dhihi kartaa macnaha dhibco waxaa siin kartaa dotted dhibcahaas siin kartaa. okay waxaa siin kartaa oo kaleeto dashid. okay waxaa siin kartaa oo kaleeto dashid siin kartaa qaabkan waa siin kartaa ayadane. laakiin aniga waxa u baahanahay solid waaye solidaasi. so inaa fahanteen filaa halkan 15 pixel aa ka dhigi waa ka yareyn kartaa waa ka badin kartaa. so colorka kaleeto green aa ka dhigi so red aa ka dhigi kartaa colorka hartaa siin kartaa. okay halkaana imaana hooso waxaa siinaya padding aa siinaa. padding wax kale ma aha borderkan guud ay ku dhex jiraan waaye. so waxaa siinaa marka padding waxa lahaa siinaa. padding waa maxay? padding wax kale ma aha. so borderkan dhexdiisa in size nagala siiyo macnaha hadda box modelkan borderku ku dhagan yahay sidoo kale paragraph borderku ku dhagan yahay. so kor u dhow yahay markii loo fiiriyo hoosna waa u dhow yahay aad ugu dhow yahay. so marka padding bal waxaa nala siinaa macnaha height oo gudaha nala siinaa boxka gudihiisa nala siinaa. okay maxaa sameynaynaa halkan padding waxaa dhihaynaa paddingka waxaa u baahannahay 15 pixel aan badsano. so automatic markaa 15 pixel aan dhahay waxaa aragtiin macnaha size gudaha in nagala siiyo border gudihiisa in size nagala siiyo. so hadda comment saaraa paddingka. so paddingka hadda comment saaraa so maxaa dhacaya arkaysiin
maxaa arkaysiin micnaha baadhin waxaa waaye gudahan size nagalama siinin. So baadhinka wuxuu markasta wuxuu ka hadlaa boxiska gudihiisu ka hadlaa. So qoraaladan waxaa kasoo qaadaa borderkan inuu micnaha derbi u yahay. So borderkan markasta micnaha gudihiisa waxa ku jira size la siinaa. Okay, marka hadda commentiga aan ka qaadno farqiga u dhexeeya arkaysiin. So dhexdu imaaday wax kale ma aha. So baadhinka la siiyo baadhinkana waa cabir gudaha la siinayo oo micnaha inuu gudaha ka fidsama hab micnaha wuxuu leeyahay baadhinka wuxuu leeyahay micnaha top iyo right iyo left iyo wuxuu leeyahay button uu leeyahay. So marka 15 pixelka aan siiyey micnaha topna 15 pixel micnaha kasoo durqo waaye micnaha size ahaan hoosna ka durqo labada left iyo right kana kasoo durqa waa marka. So waxaa kaleeta samayn karnaa halkan margin isticmaalayna. margin waa maxay? waxaa aragtaa micnaha borderkeena hadda u jeedo micnaha derbiga ku dhagan yahay derbiga kasoo sikanayna margin aan siinayna borderkeena derbiga ku dhagana derbiga kasoo sikanayna. Okay, waxaan siinayna marka marka kasoo dejinayna waxaan siinayna 20 pixel tusaale kaleeta aan sii. So waxaa aragtaa 20 pixel automatic markaa siiyey derbiga kasoo sikaday. margin waxaa waa asne boxkan waxa ka baxsan waa borderka wixii banaanka ah waa korka borderka borderkan wixii ka baxsan oo dhan margin la dhahaa. So marka hadda waxaa dhihi karaa 50 pixel hadda dhaha maxaa dhaca aad ugu soo sikaday kor derbiga kor aad ugu soo sikaday inta micnaha topna 50 pixel oo ka sikaday leftna 50 pixel oo ka sikaday rightna 50 pixel oo ka sikaday buttonna 50 pixel oo ka sikaday. So marka ina fahanteen filaa halkan 20 pixel ii dheh 20 pixel aan dhahay marginka sidaas oo kale waxaa siinaynaa. Okay, waxaa aragtaa hadda daan micnaha weyneyno width fara badan oo wataa marka hadda saan qaabkan qash waa width fara badan oo wataa widthka derbi left and right width qabsado oo wataa micnaha. So marka widthkaasaan rabaa inaan yareeyo width aan siiyo halka border korkiisa width siinaa width aan siiyo width waxaa siinaa 300 pixel oo kale. So waxaa arkaysaa 300 oo pixel markaa siiyey in micnaha widthkii tirada badnaa oo derbigaas tagay so inuu soo yaraaday balac ahay. marka box modelka afartaas property uga hadlaynaa midka koowaad oo ah border property. borderka waxaa waaye midka cagaarka waa borderka midka cagaarka waaye oo aan borderka 15 pixel inoogu dhig colorkiisana green inoogu dhig. sidaas si lamid ah waxaa kaleeta ka hadalnay baadhin wax lahaa baadhinkana waa idin sheegay borderkan gudihiisa wixii ku jira baadhinku size ahaan u qaataa. So derbigan awal micnaha waa yaray baadhinkan aad u yaray. So hadda marka baadhin 50 pixel aan siinay so wuu weynaaday micnaha size-ka micnaha borderka gudihiisa. Okay, margin ku soo hartay marginkana borderkan wixii banaanka ka ah waaye. So borderkan wixii banaanka ah wuxuu yahay margin yahay. So waxaa siinay 20 pixel aan siinay inuu kasoo sikado derbiga ujeedaa kor iyo geesaha inuu kasoo sikado ujeedaa. So marka waxaa la dhahaa sidaani waxaa la isku dhahaa afartaani box model la isku dhahaa. So borderka iyo baadhinka iyo marginka iyo box model la isku dhahaa. So inaa wax badan ka fahanteen filaa practiceyo ku celceliyo kadib aad fahmaysiin. properties waxay u baahan yihiin inaad practiceyso markasta practicadaada ay badan tahay oo cashirkii aad qaadata ama lagu sii practiceysa intuu qoyan yahay. So intaa fahanta markasta ay noqonaysaa. So marka waxaa idin leeyahay isku dayo practiceyo colorkan bedelo oo colorkeeta siiyo borderka waxaa siin kartiin oo kaleeto waa yareyn kartiin waxaa isticmaali kartiin solid oo kaleeto sidoo kaleeto dotida isticmaali kartiin dashida isticmaali kartiin. So marka tijaabooyin fara badan marka afartan properties hadda inay sii oo ah widthkii cabirka size-ka aniga aan sameeyay size-ka duu inaan micnaha ku practiceyso sidaas la mid ah waxaa ka samayn kartaa borderka asne size kale aad qaadata practiceysa. So solid iyo dashid iyo dotted iyo waa badan yihiin marka practice fara badan sameeya insha Allah. So wax badan aad fahmaysiin. hadda tusaale waa micnaha box modelkan waxa uu sameeyay so propertieska qaabka iskula shaqeeyaan micnaha inaa idin tusay ahayd marka guul idin rajaynaa insha Allah.